قد دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام. الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الممدود. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما فيه الخير والسداد. ولا ليال إن شاء الله تعالى waxaan ka tilmaami doonaa si kooban fadliga tobanka hore ee bisha Dhul-Xijja oo maanta ay bilaabatay ama ay dhalatay. waxaan Allah subhanahu wa ta'ala weydiisanayaa hadalkayga inuu toosiyo muslimiintana ku anfaco, anigana ajar igaga yeelo, ikhlaasna iga dhigo, idinna idinku barakeeyo subhanahu wa ta'ala. أولاً ولا ليال tobanka maalmood ee hore ee Dhul-Xijja fadligeeda waxaa laga fahmayaa dhaarta Allah uu ku dhaartay subhanahu wa ta'ala في قوله تعالى والفجر وليال عشر. waxaa la yiri subhanahu wa ta'ala والفجر oogta horaan ku dhaartay. waxaa kaloo lagu fasiraa maalinka hore oo maalinka dhan baan ku dhaartay lagu fasiraa. waxaa kaloo lagu fasiraa salaada subax qudheedan ku dhaartay subhanahu wa ta'ala. waxaa la yiri mar kale walayaal 10 habeeno 10na waan ku dhaartay. habeenada 10ka jamhuur salaf saalix waxay ku fasireen 10ka Dhul-Xijja u horeeya ayay ku fasireen, walow tafsiir kalena uu jiro oo lagu fasiro 10ka dambe ee bisha Ramadaan. washafci ayuu Allah ku dhaartay subhanahu wa ta'ala oo lagu fasiray yawmul 10, yawmul nahri, yawmul hajj al-akbar, maalinka tobnaad, maalinka dhoondhowga wax la biraynayo udxiyada, maalinka tobnaad ee la ciidahay ee muslimiintu ciidahayaan yawmul hajj al-akbar ayay salafu saalix ku fasireen sida Ibn Abbas ka sugan iyo qeyrkiiba. ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره وحوليه المراد بها 10 ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم. وحال ولجد وليال 10 طبعا ذي الحجة الرئيسة سيده يري ابن عباس ابن الزبير هي مجاهد إلهي سبحانه وتعالى كرى لنقضيه. وحا يحكت انت الله وحكوت المامي أو أياما معلومات وصف الله بها أيام معلومات. مالمها الله وحكوت مالما صدلا مضلا ليقان مديسا صمدنا دار أصوعنا أصوبا. ولذلك في قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وابن عباس كفصرها هي أيام 10 Dhul-Xijja أي كفصرها هي سيدا سينا السلف كبضن كوضا يمرين. أما النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء صلى الله عليه وسلم. حديث أبو داود ترمذي غير كيسو صاريات. وحو النبي يقول لي مال من مجر عمل وناكسن وصوبا وأدونك مؤمنك أو سمي اللي حق اللي جعل بدنيا مال معهم طبعا كأهفلك أو سمينا يا أدونك. saxaabadu way weydiiyeen waxay yiraahdeen rasuul Allah xataa jihaadka ma ka fadli badan yahay. halka waxaad ka dareemaysaa sida saxaabada jihaadka ugu weynaa. halka maanta ruuxii soo qaada uu yahay matruud maftuud uu yahay oo loo yaabo. walal jihaadu fi sabiilillah anka jihaad alle dariiqii jidkii lagu baxo lagu dagaalamo xataa waxa weeyaan uma dhigmo ilaa rajulun min mooyaane ninkaas oo kharaja binafsi wa maali naftiisi maalkiisi u baxay la baxay والله درتي وجهه سبحانه وتعالى فلم يرجع من ذلك بشيء حقنا وحبا أنا كسر نقول صار كل انتي الله سبحانه وتعالى شهادة أوسيي. وهو كلام النبي يقول له عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا أيام 10. حديث أورده الألباني في صحيح الجامع. مالما الله أوجع عليها أدونك ومالما طبعا Dhul-Xijja ugu horeeya. طبعا maalmood maalinka koowaad ilaa maalinka sagaalaad laga gaaro maalinka Carafa ilaa laga gaaro waxaa wanaagsan maalmaha maalinka koowaad ilaa maalinka sagaalaad in la soomo. في مسند أحمد والطبراني في المعجم الكبير وابن حبان في صحيحه وأبو يعلى في مسنده 4 لم يكن يدعه النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة. وحاكو سبن النبي وأفر إنا نكتك جرين صلوات ربي وسلامه عليه. سواء كمانك عاشوراء طبعا كمالمود أو Dhul-Xijja 3 maalmood bil walba
iyo 2 ragcadood qabla dhuhri la tukado salawaatu rabbi wa salaamu calayh. inkastoo raawigu iyo Camr Qays ka warinaya Abu Isxaaq al-Ashja'i oo majhuula, Albani baa kuwa ka waramay fi al-Irwa' al-Ghalil. حديث وصار سيدو كلا الترمذي بزار ابن ماجه أي صار يعني من طريق أبي بكر نافع ابن نافع البصري وحليه قال حدثنا مسعود ابن واصل عن نهاس ابن قهم البصري عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. إسناد كيسوا ضعيف وحان صاب كالو ضعيف ويهي نهاس ابن قهم ورجل ضعيفة حق حفظ قناة وذادد أي دران. وكذلك مسعود ابن واصل قدسنا هذا ضعيفيان. وحوي حديثكم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. النبي عليه الصلاة والسلام مالين مجرو لجع مالمو مجرو الله حقي لجع البدين سبحانه وتعالى إلا بعبده طبعا كان مالمود ذي الحجة وحيود دقنتها هل مالين الله صوم طبعا كان مالمود سنة أيوة دقنتها هل هبينك كمل طبعا كجيرنا ولا استهجنا هذا هبين ليلة القدر اللي وهليلية كدقنتها. تلمذ وحولي هذا حديثنا غريب لا نعرفه إلا من وجه ابن مسعود إلا من وجه مسعود ابن واصل الوجه ده مسعود ابن واصل عن النهاس ابن قهم وحاول يدي بخاري ما ودي وحنا يشيء إنه سنجرني لكن طريق كلا جرى عن قتادة عن سعيد المسيب عن النبي وأنا مرسل قد تكلم في يحيى بن سعيد القطان ولونا ولي waxay daba taagan tahay Nahaas ibn Qahm oo ah nin xifdigiisa lagu dhagan yahay. Baqawi wuxuu leeyahay isnaadu dhaif fi sharh sunnah وكذلك ابن تيمية في شرح العمدة wuxuu leeyahay وفيه ضعف buu leeyahay. ابن حجر في الفتح وكذلك الباني isna في السلسلة الضعيفة وكضعيفية. maalmahan tobanka walaalayaal si kastaba waxa wanaagsan ikthar al-a'mal as-salihah a'maasha wanaagsan in la badiyo ayaa aad u fiican oo la joogteeyo oo Ilaahay loogu dhawaado subhanahu wa ta'ala sida takbiirta tahmiida tasbiixda iyo tahliisha wixii la halmaala iyo nabiga lagu saliyo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. wuxuu leeyahay subhanahu ma min ayaamin a'zama 'inda Allah wa la ahabba ilayhi min al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. waxaa soo saaray Ahmad Tahawi fi sharh mushkil athar min hadith Abdullah ibn Umar. wuxuu leeyahay subhanahu alayhi salatu wa salaam maalma ma jiro Ilaahay agti ka weyn laga jacayl badan yahay maalmaha kan amal la sameeyo gudihi waa 10 maalmood ee badiya takbiirta tahmiidda tasbiixda tahliisha iyo saliga rasuulka alayhi salatu wa salaam. gabagabada waxa ay raacdaa maalinka u dambaysa oo ayadana si aad oo gaara loo yeesho lagu dadaalo ninka aan awoodin sagaalka hore 8 maalmood inuu dadaalo ninka aan awoodin walba sagaalka maalinka sagaalaadka ha ku mintido oo ku meel adaygo. wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wa sallam siyaamu yawmi arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. xadiis fi sahih muslim ku yaala wuxuu nabigu leeyahay alayhi salatu wasalaam maalinka arafo soonkeeda waxaan alla ka xisaabsanayaa subhana inuu iga dhaafo dunuubta sanadkii tagay iyo sanadka soo socdaba. ومركا وفرصة دنوبة لغو دافو سنة هورا يا سنة دنبابا halka caashura ay ahayd sanadkii tagay dambiga in laga dhaafayo wuxuu kale nabigu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam oo fursada maalinka sagaalaad in laga faa'iideysto ay tahay ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar ibn yawm arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaa'ika fayaqulu ma arada ha'ula'i. muslim baa soo saaray maalin ma jirto alla uu ka xoreyn badan yahay adoomankiisa maalinka carafo ilaa alla uu soo dhawaanayo subhanahu wa ta'ala uu soo dagaaya laga waday malaa'iktiisana uu faanayo uu leeyahay arka adoomankayga afarta qaarad bay ka yimaadeen way baasaysan yihiin way ii baahan yihiin way baryahayaan hal carray taagan yihiin maxay doonayaan isagoo malaa'ikta markaa ku oranahay taa macnaheedu ay tahay miyaanay doonin waxaan ka ahayn inaan u dambi dhaafo waan u dambi dhaafo weeye. waa waxa maalinka wanaagsan carafada in aad iyo aad ducada loo badiyo kuwa taagan xajka iyo kuwa aan taagnaynba. nabigu wuxuu leeyahay alayhi salatu wa salaam khayru du'a yawmi arafa du'a lagu duceysto waxa uu wanaagsan oo u fiican maalinka arafa ducadeeda. tirmidhi baa soo saaray albaanina waa xasaniyay. walidaalika kaydka alle waxa ka dhargay oo hiinsaday kuwa gacmaha alle u hoorsa subhanahu wa ta'ala nuur naxariis naala adun iyo nimca aakhiraba
waxaa hiisaday kuwa xagga alla u carara keligiina weydiista danahooda adduunya iyo aakhiraba alla subxaana wa tacaala tala saarta arrinkoodan u bandhiga wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahay barya idinkoo yaqiinsan qalbiga gashtay in alla idin aqbalahayo idinka ajiiba subxaana wa tacaala ama ha dhowaato ama ha dheeraatee waclamuu ana allaha laa yastajiibu ducaaan min qalbin gaafilin laahi ogaadana sidoo kale inaanu alla ajiibayn duco mid qalbigiisu maqan yahay laabtiisuna aanay u jeedin dhanka alle subxaana wa tacaala tirmidi baa soo saaray albaanina waa saxiixiyey gacmaha oo kor loo taago indhaha oo ilin laga qubo qalbiga oo alle lagu qabto subxaanahu wa tacaala iyo dareenka weynida alle iyo wanaagiisa subxaana ayuu mu'min ku noqdaa addoon barakaysan oo allihiisa ku xiran subxaanahu wa tacaala haddaba haddaad doonaysa inaad alle la saaxiibto u dhowaato ka mid noqoto gacalladiisa maalinka qiyaamana uu abaal mariyo waxaa lagaa rabaa si dhaba inaad u fahantid doonistiisa amarkiisa xaqiiqana aad u qaadatid amarada alla uu soo bandhigayo subxaanahu wa tacaala doonistiisuna xigmad tahay amarkiisu fulin yahay natiijadiisuna ay dhab tahay la kulankiisana uu xaq yahay wallaahu aclaa wa aclam